ku soo dhowaada falanqayn iyo odoros la xiriira qaybta 76aad ee filimka filo adduunyo wax kasta ka filo. sida muuqato maxamed amiin iyo hooyadiis ardiyo waxay qaateen fadhi dheer oo ay ugu warramaysay sidii ay ku qabatay, sidii u soo korisay, wixii la soo martay, sida habarteed iyo ayada ay isku ahaayeen. sheeko dheer ayay ugu sheekaysay. maxamed amiinna runtii wuu ku qancay sheekada ay ugu sheekaysay hooyadiis ardiyo, oo runtii asiga oo boohinta iyo balaqa isku daraa, ayadana sidoo kaleenta runtii aad ayay ugu beerlaxoosatay wiilkeeda, wayna soo jiidatay. run ahaantii taas waaye midda horta meesha taallo. marka maxamed amiin markii loo dhameeyey ugu dambeyn wuxuu weydiiyey su-aal ah, anigu walaalo ma leeyahay? run ahaantiina ardiya way og tahay in maxamed amiin iyo hibo ay walaalo yihiin, waxayna u ballan qaadaysaa ay leedahay arrintaasi waa sheeko dheer, mar dambe ayaan kaaga sheekay doonaa adigoo degan, oo hadda waad kacsan tahay, muddana shaqada waad ka maqnayd, shaqadaada aad. arrintaasi waxa waaye sheeko dheer ayaan ku galaa, waa wejiga labaad, walaalaha iyo wuxuu dhan. maxamed amiin sidaas ayuu ku qaadanayaa warka ay hooyadiis u sheegtay. runtiin waa maxamed wuxuu filimka ku masalayaa qof baari ah, wiil baari ah oo mudiic ah oo waalidkiis ka dambeeyo. hooyo ardiyo hal su-aal ayuu weydiinaya maxamed inuu ahayd, hooyo ruuxaantii kugu dhici jirtay markaan joognay Soomaaliya intee ka aadeen? waa film runtii meesha ugu qosolka badan. hooyo ardiyo oo maxamed amiin joos waxay tiri, hooyo malaha ma aqaanin markaan waddankan caddaanka nimid ruuxaantii caddaankii ka baqdo way dhumatay, way carartay. marka arrintu waa sidaas. ardiyo hadda waxay ka fikiraysaa haddii maxamed amiin ay u sheegto in ay walaalo yihiin hibo, inay walaalo yihiin baxsan, inay walaalo yihiin haddii u sheegto, wayna ogtahay inay walaalo yihiin, laakiin waxay leedahay dnt, waxay leedahay dnt anaa habeynaa, anaana ka dhaadhicinaa maxamed amiin. sababtoo maxamed amiin wuxuu aaminsan yahay dnt in baxsan ayna walaalo ahayn 100%. laakiin way og tahay hooyo ardiyo maxamed amiin iyo baxsan inay isla dhasheen, laakiin maxamed amiin intaas ayuu rumeeyey. laakiin baxsan way ka soo horjeedaa, wayna aamin la-dahay, waxayna aaminsan tahay 100% maxamed amiin in ay walaalo yihiin. hooyo ardiyo waxay ku koraysaa inay ayada u sheegto macnaha maxamed amiin gabadhaas inay walaalo yihiin, ayadaana qanci doonto. ilowse baxsan run ahaantii aad iyo aad ayay ugu kalsoon tahay 100% inay maxamed amiin walaalo yihiin. waa marka ay ka codsanayso doctor cali in isaga gacantiisa uu ku baaro. laakiin doctor cali waxa waaye go-aan raqiis ah oo meel aan gaarsiisnayn ayuu qaatay, oo ah maadaama adiga iyo baxsan ah iyo maxamed amiin iyo hibo magacyada ay kala duwan tihiin, dnt waa kala duwanaa kartaan. hibana waxay leedahay waa kuu sheegay doctor inay magacyada kala duwan yihiin, marka hadda waxaan kaa rabaa in adiga gacantaada aad ku baartid. dood dheer doctor cali wuu aqbalay. marka su-aasha meesha taallaa waxay tahay, hibo haddii maxamed dhiigga laga qaado oo is yeeshaan dhacaanka hidasida haddii laga qaado maxamed amiin iyo baxsan ay noqdaan macnaha walaalo, ma la soo celi doonaa hibo si mar labaad loogu baaro loo ogaado? midda kale sababtoo ah baxsan hadda waxay xoogga saaraysaa maxamed amiin, hibo meesha way ka saartay oo hibo meesha kuma jirto. qaybtan saddexaad waxaan ku soo qaadanayaa 4 qof oo u bixiyey reer mara furasho. dadka maryaha ka furto waa dadka kaabalaadayaasha filinka, waa master right, waa baldoos, waa shariif halaag iyo daadi. runtii shariif halaag ma ogo in
labada gabdhood isla qabo inay walaalo yihiin labaga uu qabo laakiin Master Right iyo Baldoos way og yihiin oo daaji ayaa u sheegay taasi wuxuuna samaynayaa lafcad ayuu toobin ku hayaa xaaskiisii oo dhab ah oo la dhalatay baxsan ayuu rabaa inuu meesha ka bixiyo uu geliyo koronto midda kaleento Master Right iyo Baldoos ayagana lafcad ayay toobin ku hayaan oo waxay aamineen warka Shariif Halaag uu leeyahay gubadka aan gubi doono eelada cuni doonto subaga aan ka shili doono cab ama cabin marka midaas waxa waaye waa quud aan jirin qori u guur ay ayagana meesha ku hayaan marka su'aasha meesha taala waxay tahay oo ugu muhiimsan ugu dambeyn way soo baxaysaa horta in Maxamed Amiin iyo Baxsan walaal ay yihiin ha ka timaado hooy ardiyo ama ha ka timaado DNN-ta haddii ardiyo ay sheegtana DNN-ta way sii xoogabaysaa in dib loo sii baaro laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay Shariif Halaag yaa u roon in xaaskiisa Hibo ay walaal noqoto Baxsan iyo in koronto oo ay wataan Master Right iyo Baldoos ay wataan oo qarash ballan qaadayo inay noqoto walaalnimo booska la soo geliyo kaalintii walaalnimada la soo geliyo marka Shariif naftiisa waxa waaye lafcad ayuu toobin ku hayaa bal aan aragno filinka jidka uu nasiyo iyo wixii xal ah kulan dambe xiiso leh wassalaamu calaykum